السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري يا صاحبيال. waxaan bilaabi doonaa kooraskeenii clickbank ama affiliate marketing online business. kooraska haddii maanta theorygiisa ama powerpointkiisa ama slideskiisa aan sharaxno, waxaan ka bilaabi doonaa hordhaca. horta maxaa la yidhahdaa internet business models maxaa loo qaybiyaa? internet business modelska waxaa loo qaybiyaa ama internetka habab kala duwan ee dhaqaalaha looga sameeyo waa saddex. midka koowaad waxaa loo yaqaanaa sell your own products, inaa iibiso alaab adiga aa leedahay inaa iibiso. midda labaad waxaa loo yaqaanaa sell advertisement space. sell advertisement space waa inaa website iyo platform online ah inaad samaysto, adiga alaab aa ku xayeysiiso, kadibna alaabtaas adiga online macnaha sell your advertisement space waxaa waaye yacni website aad samaysane alaaba iyo waxbaa ku xayeysiine, xayeysiiskaas iyo waxyaalaha dadka soo booqanayo yaa lacag mataqaanaa ka samayn doontaa. midda saddexaad ugu dambeysa waa sell other people's product, inaa iibiso yacni alaab dad kale ay leeyihiin inaa iibiso. waa sii faahfaahin doonaa. sell your own products maxaa lagala jeedaa? sell your own products waxaa lagala jeedaa physical, wax la arki kara waa tusaale kombiyuutarro iyo mobile ama qalamaan ama kaba inaa iibiso oo adiga aa leedahay online ka ku iibiso, kadib lagaa soo dalbado dadka u geyso. macnaha online aa lacag ka samaynaysaa, laakiin maxaa qaab nooc ugu samaynaysaa wax adiga aa leedahay lacag ka samaynaysaa. midda labaad waa sell advertisement space, yacni waa inaa website ama billboardska waxyaalaha newspaperada inaad samaysto, website ama magazine inaad samaysto, wargeys. kadib wargeyskaas xayeysiis lagugu xiro, adiga ama maqalla aad soo geliso ama videoyaal aad soo geliso. markii waxaas oo videoyaas ama maqalladaas aad soo geliso, intaas aad lacag ka samayso, xayeysiiskaas kugu xiran inaad lacag ka samayso waxaa loo yaqaanaa sell advertisement space. keli ah xayeysiis aad lacag ka samaynaysaa waa midda labaad. midda saddexaad oo ku saabsan koorskeena dhan si guud ku saabsan affiliate marketing waxaa loo yaqaanaa sell other people's product, inaa iibiso alaab dad kale ay leeyihiin inaa iibiso. okay, selling other people's product often referred to as affiliate marketing, inaa iibiso alaab dad kale ay leeyihiin waxaa loo yaqaanaa affiliate marketing, ama waxaa loo yaqaanaa reselling, dib u iibin. macnaha alaabtan dibaa u iibinaysaa. involves promoting and selling products or service, adoo fiirinaya yacni ama xayeysiinayo alaaba dad kale ay soo geliyeen. tusaale hadda markaan clickbank sameynaynay ama samayn doono ama alaabaha xayeysiin doono, alaabtaan xayeysiinayna annaga meesha ma soo gelinin, qofaa soo geliyey, company aa soo geliyey, laakiin annaga maxaan sameynaynaa alaabtaan u tegi doonaa, linkkeedaan qaadan doonaa, waxaan geyn doonaa website ama google site ama article aan qori doonaa, kadib waan ku xayeysiin doonaa. annaga maxaan sameynaa marka reselling aan sameynaynaa. reselling maxaa waaye waa dib u iibin, alaabtii yani qofkaas u lahaa yaan dib u iibinaynaa. taasaa marka waxaa loo yaqaanaa affiliate marketing. marka waxaa cajiib ah in alaab qof kale uu leeyahay inaad iska tagto, linkeeda iska soo qaadato, website geyso, xayeysiiso, ama adoo marka qaar lacag kaaga bixin aa lacag ka samayso. taasaa marka waxyaalaha cajiibka oo affiliate marketingka uu aadka u wanaagsan yahay ay ka mid tahay. how it works, affiliate marketing waa sheegnay sida u shaqeeyaa. affiliate marketing wuxuu u shaqeeyaa kow, you upload blogaaga la soo booqan doonaa. visitors finds your site and a link to merchant product. visitorska dadka soo booqdayaasha ah maxaa laga wadaa dadka google-ka wax ka raadiyo ama wax search gareeyo ama wax raadiyo, waxay sameyn doonaan alaabadaada ay soo booqan doonaan, alaabtaadii ayay soo raadin doonaan. markii qofta alaabtaada uu soo raadiyo waxaa dhici doonto in mar labaad, waa step koowaad, alaabtaan markuu soo raadiyo visitors click your unique link. qofka marka visitorska ama qofka soo booqanayo wuxuu sameyn doonaa linkigaada unique ah ayuu click soo siin doonaa. markii linkaada unique uu click soo siiyo maxaa dhici doona visitor then purchase product, alaabta iibsan doonaa, markaas kadib commission heli doontaa. sidaan u shaqeeyaa. marka haddaan kusoo celiyo, qofka website-kaada ama landing page-kaada soo booqan doonaa, kadib wuxuu sameyn doonaa linkigaada unique ahaa. linki unique maxaa la yidhahdaa waa arki doonaa, you click siin doonaa. waa linki unique macnaha waa promote link loo yaqaanaa, you click siin doonaa. markuu promote linki click siiyo waxaa dhici doonta qofka inuu alaabta iibsado haddii uu ka helo. haddii uusan ka helin hadii waa ka tegi doonaa. haddii uu ka helo markii alaabta iibsado waxaa dhici doonta inaad hesho your earn commission from the sale. commission ayaa ka cun doontaa sale kasta oo yacni waxa uu ka iibiyo. sidaan ayuu u shaqeeyaa. how do I start, waa su-aal weyn marka midaan. sideen u bilaabi karaa affiliate marketing? kow, waxaa u baahan tahay 5 step oo kala duwan u baahan tahay. stepka koobaad waa join affiliate, inaad ku biirto
midda labaad waa find product marka ku biirto waa ina alaab muhiim ah ama aad xayeysiin karto inaad raadiso midda saddexaad waa promote product inaad alaabta xayeysiiso markaad raadiso alaabti oo aad xayeysiiso yacni tusaale alaabta waa raadinay Clickbank ama Amazon ha noqdo adiga alaabtaan raadinay alaabtadana waa xayeysiinay markaan xayeysiino midda saddexaad track sales markaa xayeysiiso waa inaad gadasho heshaa qof kaa gata because alaabta inaad xayeysiiso haddii lagaa gadanin wax commission ma helaysid midda ugu dambeysana waxaa waaye aan commission markii track sales aad sameyso ama lagaa gato ayaa waxaad heli doontaa commission sidaan ayaa ah 5 tilaabo oo aad ugu biiri karto oo midda ugu horeysa ay tahay join affiliate midda labaad ay tahay find products midda saddexaad ay tahay promote products midda afraad ay tahay track sales oo ah in yacni alaabtii lagaa iibsado midda ugu dambeysana oo ah markii haddii lagaa iibsado inaad hesho commission waxaan rajeynayaa si guud affiliate marketing inuu u shaqeeyo waxaan kusoo gabagabeynayaa cashirkan waxaan sameyn doonaa Clickbank account ka sameysan doonaa waxaan rabaa inaan idiin sii caddeeyo video soo socdana aan ku caddeyn doonaa affiliate marketingka marka ka sameynaysa Clickbank kuma shaqeeyo account Soomaaliya waa inaan qof dibadda jira ama qaraabadaada ah ama familkaaga ah inaad la hadasho oo aad tiraahdo yacni ii samee yacni wax loo yaqaanaa account ii samee ama contact informationkiisa inuu kuusoo diro kadib si loo buubuuxiyo waxaas dhan waa baran doonaa laakiin waxaan rabaa inaan hordhac kuusii siiyo markaad Clickbank kusoo biirayso waa inuu kuu diyaarsan yahay qof familkaaga ah oo akoonkiisa iyo xogtiisa kugu samayn karo kadibna kuusoo diri karo intaasaan kusoo gabagabeynaa cashirkan asalaamu calaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوري صاحبيال عشركة waxaan ku baran doonaa sideen ugu biiri karaa Clickbank akoon sideen ugu samaysan karaa runtii Clickbank hadaan marka koowaad mar labaad mar saddexaad waan kusoo celsho Clickbank kuma shaqeeyo akoon Soomaali hadaan rabto inaad kambanigan ama bangigan yacni platformkan Clickbank aad ka shaqaysto suuqan waxaa u baahan tahay qof yacni ama America joogo ama Europe joogo oo qaraabadaada ama familkaaga ah inaad xogtaada u gudbiso ama aad tiraahdo shuruudaha ku tusi doonaa intaas aad u gudbiso aad ku tiraahdo yacni akoon iga soo samey kadibna Gmail ii soo diri passwordkiisa ama username-ka iyo mataqaanaa passwordkiisa ii soo dir oo sidaas aad ku isticmaasho laakiin waxaan ka fiirsanaa akoonkan macna platformkan kuma shaqeeyo wax loo yaqaano Soomaali furiyaasheeda iyo adreskeeda dhan ma aqoonsan marka haddii aad rabto inaad ku biirto markii aad ku biirayso waxaad samayn doontaa intaana diyaarsan doontaa kow qofka waddanka uu joogo inaad kuu soo diro ama ogaato laba qof qaraabadaada ah inaad la hadasho oo tiraahdo intaan maxaa yeelay qof maanta xogtan ku ogolaanayo ma jira ilaa qof yacni qaraabo aad tihiin ama famil tihiin ama waalidku ama walaalku ah yaa intaan ku ogolaan karo marka intaas samee wax culusna maahan yani wax aad iskaga fudud waa marka ugu horeyso waxaad weydiisan doontaa waddankii mataqaanaa uu joogo gobolka uu kasoo joogo kusoo diri doonaa sidoo kale cityda ama caasimadda markaas meesha uu ka joogo ayuu kusoo diri doonaa adreskiisa uu joogo iyo zip code iyo phone number intaana weydiisanaysa oo kaliya kadibna adaa samaysan kara xataa waxaa la sameeyaa VPN daaranaysaa VPN markaad daarato waxaa samayn doontaa waxaa ka dooran doontaa yacni waddanka markaas asaga uu joogo tusaale ahaan haddii Mareykan uu joogo VPN-ka waxaa saaranaysaa Mareykan kadibna xogtan uu kusoo diro ayaa ku buuxin doontaa wax simple ah sida loogu biiraa haddii aad intaan nimaadno hadda platformka waa kana horta Clickbank waa bangigan waa platformkan aragto haddii aan hoos u soconno meesha waxaad ku arkaysaa in over 190 countries inuu ka shaqeeyo over 25 years oo ilaa 25 sano ka badan ayuu yacni kambanigan shaqeynayaa over 6.2 billion paid waa lacagta dhexmarta taxationkiisa waa inta marka waxyaalaha cajiibka waxay kamid tahay yacni intaan oo maalintii aad dhex marayso intaan oo lacaga markay dhex marto yacni waa dareemi kartaa waxyaalaha is dhex marsanaa affiliate marketing inay aad qaali u tahay markii intaas macluumaad aan ogaanay oo yacni qofkii adreskiisa macluumaadkiisa iyo xogtiisa aad kasoo hesho waxaan u gudbi doonaa sideen ugu biiri karaa waxaan dhihi doonaa login
markaan login gareyno hadda aniga login markaan dhahno aniga hadda waxay samaysan akoonkayga login kuma galayo laakiin hadduusan ku samaysnayn because adiga ku cusub tahay waxaad dhihi doontaa create an account for here halkan akoonka abuuro oo sign up ayaa kusoo bixin doonaa laakiin make sure hadda aniga VPN isticmaalo wax VPN ah ima daarno haddii waxaa isticmaali kartaa VPN free VPN isticmaali kartaa waa extension يعني كل وسدجيو استعمال كرتا touch VPN استعمال كرتا انت بدن xogaa touch kana xoog leh in isticmaashaan isku day way hay sign up ka markii sidaan ay maado meesha wax ka dooran doontaa qofkii wadanka uu joogo tusaale ahaan wadankiisa oo United States ka dooro meeshaan muhiim ah inaad magaciisa geliso magacaaga xataa waa gelin kartaa last name iyo first name laakiin tan muhiim ah meeshaan telephone numberkiisa gelin doontaa meeshaan waxaa gelin doontaa email address markaas laakiin email address waxaan ku talin lahaa in uu ku sameeyo email address adig ku khaas ah macnaha inuu email address ku sameeyo passwordkiisa wixiisa uu ku soo diro waxaa jiro productyal CPA doodii waxyaalaha qaar loo weydiin doono in gmail-kaaga la hubiyo marka qofkaas yani qofka maqan maadaama uu yahay kuma suurtagali doonta yani in markasta gmail-kiisa inaad wacdo aad tiraahdo gmail-ki iga jawaab waxyaalahaas dhan oga caqabada ku noqday marka waxa sameeysaa in gmail-ka markastaba adiga aad samaysto kadib asaga u dirto hadii uu ku soo sameeyo ama adiga macluumaad uu ku soo diro hadii VPN isticmaalayso gmail-ka aad haystaba taas ma okay laakiin dadka qaar waxay sameeyaan inay yiraahdaan isoo sameey asaga qofka u diraan qofkaas family-ka xaq jir u diraan yani markii uu soo sameeyo gmail asaga uu leeyahay uu sameeyna hadhow gmail-ku baahdaana barbaleen ka noqday marka taasna ka taxadara yani gmail-ka adina haysto isku day kadib marka gmail-ka meeshaan geliso inta waxa gelin doontaa password adag password-ka waxa lagu leeyahay meeshaan fiiri character adag laga rabaa lower case xarfay yar ilaa 2 laga rabaa upper case waxa laga rabaa ilaa 2 lambar at least 2 lambar oo inay ku jiraan tusaale waxa laga wadaa hadii meeshaan click siiyo waa inay ku jirto 2 oo yar dara xarfay inay ku jiraan waa in 2 tir ku jirto atwa in laga heli karo inta laga baahan marka adiga soo samaysanaysa password-ka ay yaqaan laakiin shuruudaha waa in intaana tig saartaa kadib waxa dhig doontaa meesha jibta saar doontaa I have read and agree the terms and condition tig saar tigkad saarmayso sababta waxa waaye continue terms and condition waa inaad ku dhufataa kliga siin doontaa sidaan ku furmi doonaa marka kadib ku laabo waxa arkaysaa terms and condition in loo saaray kadib waxa dhig doontaa create account ma sha Allah markaas account-ku ku sameeysan doonaa username iyo password-keena isticmaali doonaa markii account-ku ku sameysmo halkaan ma click bank sida hadda oo soo galayna caadiga halka ugu horeey ku dhufo markaad ka sii waxa leedahay login okay أنا هذا الجيميل كي مركو أقرن دونا because وحب بريفت حتى بريفت كان هذه عن ذات كله وذاك تحقق قانونيا مو ناقصنا مركا حكتا وقرنا الجيميل كي باسورد كي هذا أساس مستلي أنت راح تقول إنه الجيميل كأساس مستي أنت راح تقول إنه الباسورد كهذا أساس مستي كده راح نقول إنه لوجين okay markii aad login tiraado sidaan ku soo bixin doonto marka platform-ka Clickbank waa kana waa noo sameeyay laakiin waxa ka sii dhiman agu lacagtii markii yani account-kii lagu dir lahaa ku xiran account-kii inaan ku xirno ayaan odhan laakiin Clickbank hadda waxaan sameeynay inaan iska soo duwaan gelino waa ku guuleysan waxaan oo dhiman inaan account istagno account nickname wax la yiraahdo sameysano ashaka dambe ayaan ku baran doonaa laakiin hadda si guud Clickbank sidaan ugu soo biirtay waxay hadda ka dambeeyaan yani password-kaas iyo gmail-kaas ku soo gali doontaa casharadaada si taxana ah mataqaanay daawo isku day inaad mid kasta mid ka dambeeya fahanto aad hadii inta soo gaarto mar oo ku biirtay kaliya waxaan oo hadina account sameeyno yani kadibna aan qofkii macluumaadkiisii oo dhameystiran aan ku buuxino ayaa noo dhiman intaasna waxaan ku buuxin doonaa yani aan ku sheegi doonaa cashirka soo socda. Assalaamu calaykum.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isku soo noqod wanaagsan. Waxaan samayn doonaa inaan casharkan ku sheegi doonaa inaan akoon samaysano. Halkaas inoo joogtay akoon sida loo samaystaa. Waxaa ku dhufan doontaa hal mar haddii platformka meesha aan sharaxo inta badan meeshan dashboardka waaye waxaan waa ticketkiisa waaye transactionka meeshan waxaa loo yaqaanaa waxaa leh transactionka lacag iyo waxaa leh ka dhacay ayaa mataqaanaa meesha lagu ogaan doonaa. Inta waa reportingki hadhow macnaha markaa rabta reportkaada iyo waxyaalahaas inaad daabacato. Inta waa accounts waxaa laga wadaa tusaale ahaan waa meesha dhan oo manage nicknameska laga maamuli lahaa waa accounts waaye. meeshana waa users waaye. Halkaan marka meesha ugu muhiimsan waa halkaan waa cajiib. meeshana ugu muhiimsan waa affiliate marketplace ka dhan suuqa dhan meesha aan wax ka maamuli doono waa halkaan. meeshana ugu muhiimsan oo halkaan waa meesha mataqaanaa marketplace ka dhan suuqa dhan halkaan waaye. meeshan waa link tools waaye waxa waaye tools waxyaalaha iskaga jiro. inta waa education inta waa profile-kaaga. marka waxaa ugu muhiimsan accounts-kan iyo sidoo kale marketplace-kan. hadda accounts-kan u nimaadno marketplace-ka sida loo doorto niche iyo sida product ugu wanaagsan loo doorto waxaas dhan waa ka hadli doonaa dhimo lahan. Okay, akoon markaan rabno inaan samaysano accounts ku dhufanaysaa kadib meesha hadda waxay ku samaysan aniga hadda waa qarinayaa ilaa 3 nickname oo kala duwan ay samaysan. marka hadda waxaan dhihi doonaa halkaan ku dhufan doontaa waxaa dhihi doontaa create nickname kadib type carabtaada inaa haysiisa affiliate promote product saa dooran doontaa because waxaan rabnaa inaan alaab promote gareyn clear macnaha. kadib magaca meesha ku qornaa magacaas waa highlight gareynayaa. marka meesha waxaad ku qori doontaa nickname tusaale click waxaan soo qorayaa tijaabo kadibna waxaa leedahay sign up. markii tijaabo sign up aad tiraahdo hadana VPN mii daarno sign up ay dhahdo. okay tijaabo waa kana marka lii sameeyay markaysa tijaabo waa lii sameeyay 29 bishii 6aad ayaa lii sameeyay. okay tijaabo click aan siin doonaa marka tijaabo aan sameyno waxaan sameyn doonaa tijaabo inaan click siino platformkana ku soo bixi doona. meeshan waxaan u hadli doonaa accounts waxaan sameynay nickname aan samaystay. nickname-ka marka waxaa u hadli doontaa yacni sidii qofkaas platformkiisa ama wax loo yaqaano macluumaadkiisa ugu buuxin lahayd. waxaad tegi doontaa meeshaan ku qoran tahay account settings. meeshaan account settings ay ku qoran tahay click see ana meeshaan macluumaadka dhan waa qarin doonaa marka account settings aad ku dhufato ada waxaa kusoo bixi doona meeshaan way maran tahay haddana waa buuxdaa xoga ku jirto. intaan waa qarinaya kow qof waxaa weydiin doontaa buyer name-ka qofka raba alaabta in gada buyer name-ka mataqaanaa ayaad magaciisa inta gelin doontaa. 2 address-kiisa tusaale ahaan address-kiisa gelin doontaa address waxaad gelinaysa kadib waa meesha macnaha account information-ka ka hadlaya. account information-ka intaas laga buuxin doonaa. waxaa u imaan doontaa account settings. hadda meesha aan edit ma dhahayo laakiin adiga waxaa leedahay click aad siin doontaa meel cusub ku furan kadib waxaa kuu soo boodi doona intaan oo banaana kuu soo boodi doonta. name-kii magacaada gelin doontaa ama qofka magaciisii email-kii oo shaqada lagu qaban lahaa ayaa meesha gelin doontaa. account phone meesha waxaa gelin doontaa telephone number-ka qofka hadda kugu xiraya telephone number-kiisa gelin doontaa. okay preferred language luqadda la isticmaalo inta badan waa English. time zone-ka waa not set. okay email format waa HTML waxaa ka dooran doontaa HTML ana fahamtay rajina. transaction email meesha ugu muhiimsan waa kana marka transaction email waxaa ka dooran doontaa yacni email-ka le asaga le kusoo celi email-ka aad samaystay unbaa kusoo celin doontaa transaction email-kan. okay waxaa kaloo gelin doontaa communication email-iska waa sida caadiga ahayd email transfer email-ka gateway-ga unsubscribed halkaan hoos u imaa marka payment information xogta payment information-ka waa 2 nooc kaliya. kow midda koowaad payment threshold waxaa laga wadaa yacni intee cadad la-eg ayaad rabtaa markii lacagtan gaartin aan la baxay. inta badan hadda meeshaan waxaa iga qoran saa arkayso $100 qoran laakiin adiga waxaa ka dhigi kartaa ugu yar 50 saa jecesha. payment method-kana waa check ala sameeyaa check
haddii oo tusaalahaan direct deposit isticmaalayso oo akoon caadi toos uu kugu xiran yahay waa samayn kartaa. markaas waxay ku xiran tahay haddii oo qofka akoonkiisa wuxuu qaab ku yahay. hadduu check yahayna check isticmaal, haddii Payoneer isticmaalaysana check isticmaali doontaa. Payoneer see loo samaystaa waxyaalahaas dhan iyadana course aan ka diyaarin doonaa insha Allah. sidaasna waxaa lagu sameeyaa. waxaan sameynaa akoon soo sameynay, akoon markaan sameynay oo soo galnay akoon settingkiisa tagtay kadibna xogtaana ku buuxisay. sidaas waxaa kugu sameysan Clickbankina waa samaystay, akoon waa ku xirtay. hadda marka waxaa ku dhiman inaad productyaashii aad doorato kadibna aad promote gareyso. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhawaad saaxiibayaal, casharkan waxaan u hadli doonaa affiliate marketplace, suuqa dhan meesha ka shaqeeyo ayaan uga hadli doonaa course-kan. affiliate marketplace ayaa click siin doontaa. sidaan isku kaa furi doonaa. meeshaan waxaa arkaysaa suuqa dhan. halkan waa marka meesha wax ka haysiin doono all categories intay ku jiraan. tusaale suuqan waxaa jira waxyaalo qaar la haysiiyo oo inta badan macnaha dadka u baahan yihiin reer galbeedka. inta badan waxaa jira waxyaalo ay u baahan yihiin oo inta badan la haysiiyo. markaan waxaa ku wadan lahaa 3 xabo oo keli ah inaa markasta haysiiso. marka ugu horeyso waa bidding system, alaabta yani eeyaha iyo waxyaalahaas ku saabsan, because dadka reer galbeedka inta badan eeyaha waxyaalahaas isticmaalaan. alaabtan bidding systemka si fiican ayay yani u gadmanaysaa. sidoo kale waxaa kaloo la isticmaalaa waxaa loo yaqaan e-business and market, electronic business iyo sidoo kale e-marketing. waa midda labaad oo iyadana suuqa inta badan laga haysiiyo, because waxaad i haysiiso maanta dhan yani waxba aad ka faa'iideynin ma soconayso. e-business and e-marketing-ka ayaa haddana sidoo kale ayaa laba ah. midda saddexaad kugu talin waxaa waaye health and fitness, waxyaalaha la isku caatay iyo waxyaalahaas dhan, because dadkan inta badan reer galbeedka waa dad aad yani u fat badan leh. marka waxay u baahan yihiin health and fitness si fiican ayaa loo raadiyaa. haddii hadda health and fitness aad ku dhufto waxaa arkaysaa waxaa kusoo bixi doona alaabo aad u badan. hadda midda ugu horeysa waxaa lahaa waxaa loo yaqaanaa health and fitness Java Pro. meesha maxaa arkaysaa marka. okay, waxaan rabaa inaan marka aan isla fahanno. markii halkaan aad timaaday tusaale waxaaba dooratay e-business and e-marketing aad dooratay tusaale. marka e-business e-marketing daarato halkaan waxaa kusoo bixayso live chat jobs. markii sidaan kusoo baxdo waxaan waa sharaxi doonaa qaabkii kala yihiin, waa sharaxi doonaa dhima lahan intaas soo fahanna. markii alaabta aad rabto yani inaad wax haysiiso 3 xab waana iska fiirisaa. hadda ku sheegaa midda ugu horeyso horta alaabta waxa aad haysiinayso wax socona oo gadma ma yihiin. midda labaad waxaa iska fiirin doontaa gravity score-kiisa intuu gaarsiisan yahay. gravity score-ka intuu gaarsiisan yahay maxaan ka wadaa. tusaale waxaa leedahay waxaan rabaa dadka gravity score-ka waxaa laga wadaa dadka alaabtan haysiinayo intay gaarsiisan yihiin tiradooda. dadka alaabta because alaab waxaa jirta 3,000 oo qof ka badan oo macnaha uu ka jiro competition, tartan badan uu ka jiro ayaa jirta. marka gravity score-ka waa iska saxaysaa. waxaa leedahay tusaale eber macquul noqonaysa. waxaa leedahay 10 qof ilaa iyo 50 qof. 10 ilaa tusaale 50 ama macquul 70 hataa okay 75 waa okay. alaab intaasoo qof ay haysiinaan rabaa leedahay. meesha initial conversion-ka sagana waxaa loo isticmaalaa inta badan. haddaan meesha imaadno initial conversion waxaana iyagana waa waxyaala sida hadda camal ah qofka meesha alaabta. laakiin gravity score-ka ugu badan. gravity score-ka ayaa kaaga filan. gravity score-ka waa midda labaad waxa ugu muhiimsan oo rabo inaan ku tuso. markii gravity score-ka aad doorato waxaa lagu tusi doonaa yani alaab. hadda fiir midda gravity score-keeda waa 6. ma arkaysaa. markii alaabta aad soo doorato tusaale aad timaado waxa aad rabto inaad hayso oo timaado click siiso. markii waa inaad iska xaqiijisaa gravity score-ka iska fiirisa. waxaan yani wax alaab competition badan haddii tartanka suuqa wax aad looga tartamaa meesha geyso yani ma ku soconayso. markaa gravity score-ka doorato halkaan usoo bixi doontaa. marka product kasta waxay leedahay gravity score, waxay leedahay initial conversion,
waxay leedahay feature bill inta ugu badan feature billka inta ugu badan waa leeyihiin. maxaa laga wadaa marka gravity scoreka waxaa laga wadaa waa dadkii alaabtan xayeysiinaya intay dhan yihiin. gravity scoreka waa number of unique affiliate links generating this sale. markaysa waa dadka xayeysiinaya alaabtan intay dhan yihiin. initial conversion kana maxaa waay haddii alaabtan aan xayeysiiyo yacni conversionka amani lacagta commissionka lii siin doono waa $9 waa $9.94 laakiin productiga waxyaalaha cajiibka kule waxaa ka mid ah feature bill waxaa la leedahay. tusaale haddii productiga inaa xayeyso hal mar oo keliya laga gatay bil kasta waxay ku siin doonaan $40 waa rebilling waa productkaas aad gatay keliya bil kasta waxaa lagu siin doonaa $40. I think meel ay ka shaqeysa inay yartaa barnaamijka saan rajeynaa intaas inay kala fahanteen rajeynaa. gravity scoreka waa inta qof oo alaabta gadatay yacni lacagtaana waa midda ka heli doonto alaabtan markii yacni commission ka heli doonto waa $9 laakiin $9 markaa hesho alaabtan faa'iidada kale leedahay waxaa ka mid ah bil kasta yacni dadka kambaniga alaabtan iskale waxay kusoo diri doonaan $40 iyo kusoo diri doonaan account number hadda aad kusoo xiraynin ama aad kusoo xirtay cashirka hore aan kusoo xirnay. intaas iyadana waa sida mataqaanaa loo doorto product wanaagsan loo doorto. tusaale haddii aan rabno health and fitness aan kaa tuso health and fitness haddii aad click siiso sida hadda camal waxay kuusoo saarayaan waxaa arkaysa hadda meesha inay xayeysiisay 682 qof alaabtan xayeysiinaysa hal mar oo keliya markii laga gatana waa $446 yani $446 laba xabo haddii maalintii lagaaga iibsado oo wax aad u tiro badan laakiin waxay u baahan tahay in iska iibsana wax maanta adduunyada macnaha maanta inaad soo gasho birina lacag samaynaysa ma jiraan. waxay u baahan tahay waqti badan waxay u baahan tahay yacni dadaal badan iyo pressure badan aad samayso u dulqaadato joogteyso. soomaali haddaan nahay waxyaalaha oo ku dhiban waxaa ka mid ah consistency dhan ma lihin joogteyn ma jirta wax inaad joogteysaa laga rabaa. haddii aad joogteyso waqti geliso xaqiiqatan waa gaaraysaa wadooyinkan aa marto wadooyinkan waxaa kugu tusi doonaa yacni beginner aniga yani hadda u shaqeynaya si beginner u fahamtay waan rajeynaa. okay marka meesha waan isla fahnay gravity scoreka inuu yahay inta qof oo xayeysiinayso laakiin waxaan ku sheegay 682 qof meelihii hadda xayeysiinaysa haddaa dhex gasho yani waxaa ka cunaysa waa yartaa. markaad waxaad iska doorataa gravity scoreka tag kadibna dadka ka dooro wax saaro 70 50 ka dooro meesha umaa markii halkan aad doorato alaabada marka laba nooc waa inaad yacni ugu soo hormariso kuwa ugu hooseeya kuwa ugu lacagta hooseeya ugu gravity scoreka hooseeya ama kuwa ugu gravity scoreka badan meesha laga doortaa rank high to low meesha ay ku qoran tahay jibtaas keligaa siin doontaa waxaa ka dooran doontaa gravitygiisu waxaa u baahan tahay high to low waxaa u baahan tahay in lagaaga soo bilaabo kuwa ugu sarreeya oona lagu dambeysiyo kuwa ugu hooseeya ama gravitygiisu waxaa u baahan tahay in low kuwa ugu horeeya kuwa ugu hooseeya yani kor la mariyo. tusaale haddaan low idhaahdo waxaa arkaysaa kuwa ugu hooseeya yani in laga bilaabo marka meesha waxaa sameysaa inta badan gravitygiisa inaad ka dhigata high to low yani inaad ka dhigto isku day kadib product waa kana marka waxaan samayn doonaa marka inaan product qaadno productiga sida marka dhow yani loo xayeysiinaa. tusaale linka aan ugu horeeya ku tusi doonaa waxaad dhihi doontaa promote markaa promote tiraahdo meesha waxaa kusoo bixi doono marka hadda midda maxaa laga baahan yahay fiir alaabada qaar yacni ma la galo hadda meesha waxaa laga baahan yahay macluumaad iyo barnaamijyo kale laga baahan yahay mid kale aan iska tegi doonaa midda hadda promote click see just like that. okay haddaan click siiyo okay marka meeshaan click siino waxaan samayn doonaa hop linki aan dooran doonaa hop linkigiisa markaan doorano meeshaan waxaan samayn doonaa traffic typeka meesha waxaa ku sheegi doontaa blog inaan blog ku sameynayno kadib generate linkigiisa ah affiliate link name meesha aan iska gelino yes hadda ii sameynaa xoogaa platform yani waxay kusoo dareen waxyaalo cusub feature cusub ay kusoo dareen
هذا ماشان kusoo laabto markaad promote tiraahdo dadka qaar waxay sameyn doonaa in kaliya uu ku yiraahdo yacni hub linkii kubiyeyso hore kaaga soo qabto dadka qaarna sida haddana iisoo saara camal kusoo saari doonaa meesha waxaa ka dooran doontaa nicknameka daa soo dooran wuxuu ahaa tijaabo nickname badan igu jiro affiliate nicknamekaada dooro haddii kuwa badan aad samaystay kii aad soo samaystay le ka dooro kadibna inta imaawo halkaa imaawo traffic type dadka qaar uma soo qaban doono laakiin dadka qaar hadduu soo qabto inta badan annaga waxaa ku haysiin doonaa inta wax lagu haysiiyaa paid organic paid haddaan idhaahdo hataa paid lacag bixin lacag laysiiya laakiin traffic type waxaa wanaagsan blog inaad ka doorato kadibna waxaa lagu generate gareyn doonaa linkigan lagu siin doonaa haddii aad copy idhaahdo linkigan qof kasta oo linkigan click soo siiyo waa link shaqeynayo waxaa la geyn doonaa yacni sales pagekii yaa la geyn doonaa oo productgan because productgan sales pagekeeda wuxuu ahaa waxaa ku qornaa akana aad marka laabto waxaa ku qornaa java boron markaysa java boron sale pagekiis waa kana meeshaan qofka imaan doona intuu alaabta ka iibsan doonaa marka qof kasta oo linkigan adiga lagu sii soo raaca linkigaas inaan linkigaas adiga lagu sii soo raaca waxaa la sameyn doonaa yacni markaasaa yaa adiga abaalmarintan lagu siin doonaa ama commissionka waxaan rajeynayaa inaad fahamtay sidii mataqaanaa product loo doorto saddex habaan kugula taliyey saddex habaa beating systemka e-business iyo sidoo kale health and fitness saddexdaas habo unbaa mid ka mid haysiin doontaa markii aad gudaha usoo gashana waxaan isla fahnay in gravity scoreka iska fiirin doonto meeshaana iska fiirin doonto high to low inaad dooran doonto markaas kadibna promote inaad tiraahdo kadib linkiga si loo soo qato waa taqaanaa يعني meesha inaan tijaabo sameyno oo tijaabo waa nicknameka daaya markii ugu horreysay course-ka aan bilaabayay yani casharkii ugu horreeyay aan kusoo sameeyey markaad tijaabo ka doorato meeshan traffic type-ka hadduu kuusoo qabto waay waxaan hadduusan kusoo qaban linkigaada horaa generate ka leedahay blog aad ku dhufan doontaa kadibna waxaa leedahay copy linkigaana marka qaadi doonaa waxaan geyn doonaa waxaan u sameyn doonaa landing page sida loo sameeyo landing page inaan sameyno linkigaan ku dhex qarin doonaa alaabta anagoo ka dhex raacayno because company kasta fiiri wuxuu leeyahay landing page uu leeyahay marka landing page loo sameeyaa sidee alaabta looga doortaa waxaas dhan casharka ayaan ku arki doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawaad saaxiibayaal waxaan sameyn doonaa productkan dooranay productkan inaan xayeysiino ayaan sameyn doonaa clickbank ayaa login soo dhihi doontaa kadibna waxaa imaadi doontaa category ama meelahan ay imaadi doontaa markii category aad timaado waxaad dooran doontaa saddexda xaba aan kugula soo taliyey waxay ahayd beating system inaad wax ka xayeysiiso sidoo kale e-business marketing inaad wax ka xayeysiiso midda saddexaad ugu dambeysana waa health and fitness inaad wax ka xayeysiiso marka saddexdan xaba yaa inta badan ugu muhiimsan markii la joogo affiliate marketingka ama clickbank wax laga xayeysiinayo sidaas xabaan kugula talinaa maanta waxaan sameyn doonaa e-business and marketing aan click siin doonaa waxaa kusoo bixi doonta sidaan marka aniga midaan xayeysiin doonaa maanta aniga sample maadaama hadda aan xayeysiisto sameyneynin laakiin si real ah ayaan u sameyn doonaa oo qofkii soo raacay aan wax badan ka fahmi doono live chat jobs aan xayeysiin doonaa gravity scorekeeda inta qof oo yacni productinga xayeysiisay waa 117 qof ma arkaysaa conversionkiisa markii hal qof uu kaa gato waxaa lagu siin doonaa $3 oo keliya laakiin meeshan faa'iidada leedahay maxaa ka mid ah haddii productigan hal mar lagaa gato bil kasta waxaa rebiil lagu siin doonaa bil kasta rebiil maxaa laga wadaa bil kasta waxaa lagu soo diri doonaa $29 waa cajiib haddii ka hor 4 producti ama 5 producti oo kala duwan oo bil kasta lagu soo diri doono rebiilka $29 lagaa gato bishii intee lacag heli doontaa waa wax cajiib ah marka waxaan sameyn doonaa marka productiga markii aan xayeysiin hore soo barnay waxaan sameyn doonaa promote-ka waxaa laga promote gareeyaa ama laga helaa mataqaanaa linkigii nagula aqoonsan lahaa ama lacagta nagula siin lahaa ayaa mataqaanaa laga promote gareystaa haddii aan idhaahdo promote waxaa kusoo bixi doonta sidaan meesha waxaa ka dooran doontaa aan dhahay nicknamekaaga ka dooro okay hoos u bax haddii adiga nickname kusoo qabana waay nicknamekaada ka dooran doontaa
intana waxaa dhihi doontaa typeka clicksy waxaa dhihi doontaa block traffic typeka waa block kadib waxaad dhihi doontaa copy link dadka qaar laakiin uma soo qaban doono hadduusan kusoo qaban si toos ah shaqadaada usii gal markii sidaas aan sameyno linkii hadda waa copyist ana marka maxaa u baahanahay inaan dhiso landing pagekii lasoo booqan lahaa tusaale ahaan hadda haddii product aan qaado aan copyeeyo live chat jobs hadda aan copy iraahdo oon goolka tago control v aan iraahdo waxaa arki doontaa dad badan oo xayeysiinaya inta fiiri live chat career online chats waxyaalahan dhan live chat jobs kambaniyadan xayeysiinaya marka waxaan rabnaa kambaniyadan in la tartanno anaga lacag aan ku bixino marka waxaan samayn doonaa laba nooc aan u samayn doonaa anoo mar isticmaalayo website blog ku dhisaayo inaan mataqaanaa alaabta xayeysiino oo dadkan aan la tartano anagoo rankii maanta wax loo yaqaan isticmaalayno qofkii fahmaya qofkaan fahmaynina faahfaahin waa ka bixin doonaa rankii maanta iyo waxaas maxaa la yidhahdaa SEO marka waxaan rabnaa marka dadkan aan la tartano anaga marka lacag yaraan bixin doonaa dhima lahan gadaalaan ka arki doonaa ha ku wareerin adiga marka sidaan sameyno yacni linkiga aan qaadanay waxaan samayn doonaa maadaama website aanan lahayn waxaan isticmaali doonaa site.google.com google site-ka isticmaali doonaa site.google.com markaad tiraahdo google site waa kana kusoo baxay ku dhufo clicksy markaa ku dhufato sidaan kusoo bixi doona waxaan u baahanahay anaga new blank meel cusub aan u baahanahay inaan furno new blank clicksy sidaan kusoo bixi doonto marka waxaan sameynaynaa waxaan waa iska tiri doonaa marka because aniga waxaan rabaa from scratch inaan kasoo bilaabo inaan kasoo bilaabnaan raamaana waa qofkii aan website yacni lahayn adoo website lahayn waxaa xayeysiin kartaa dhima lahan okay markaan sidaan sameyno marka waxaan u baahanahay inaan helno live chat jobs maxaa waaye waa qof xaafadiisa asoo jooga online ku shaqeynaya marka waxaan raadsin doonaa sawiraan waxaa isticmaalaysaa sawirada inta badan kugu tan la isticmaalso pixels website-kan pixel isticmaal pixel marka waxaan ka raadin doonaa waxaan dhihi doonaa live chat jobs control v clicksy sawiradan kusoo baxaya markaysaa qof online ku shaqeynaya asoo xaafadiisa jooga kusoo baxaya hadda islaanta camal loo soo dejiyo sawirkeeda download okay sidoo kale waxaan samayn doonaa sawirkan asagana isaga deji ninkan okay ninkaas waan degsan doonaa waxaa kaloo samayn doonaa sababta waxaa waaye yani sawirro u eg hal raba inaad degsato oo muhiim ku ah yani waxaa samaynayso waa inay yeeshaan live chat jobs okay qofkaan noo download gareey oo sawirro xoogaa u baahanahay marka intaan hadda isticmaali doonaa okay united inta kusoo laabo waxaan ku qori doonaa live chat jobs okay markii intaan ku qorno waxaan samayn doonaa meeshaan content blocks ay ku qoran tahay hoos inta soo jiid content blocks waxaa arkaysaa alaabo kala duwan meeshaan ku jira ana marka ugu horeysa waxaan isticmaali doonaa hal xabo iyo text isla socdo meeshaan waa meesha sawirka lasoo gelin lahaa marka clicksy sawirka upload ku dhufo kadib wuxuu ku geyn doonaa downloadskii aan downloadska sawirka ugu jira laakiin adiga meesha kugu jiro kasoo qaado gabadhaan soo gelin doonaa kligaan siin doonaa sawirka waa isoo galay laakiin waxaan u baahanahay qoraal inaan ku sheego meeshaan qoraalka inta badan shirkadda fiiri waxay sameeyaan waxay leeyihiin wax loo yaqaana affiliate page ama landing page ay leeyihiin landing page-kooda clicksy landing page-kooda ku dhufan doontaa waxaa kusoo bixi doonto sidaan landing page ma ku dhufato sidaan kusoo bixi doonto hoos tag emails leedahay macnaha emails jiro mid kastana wuu leeyahay ChatGPT oo ku qoran kartaa laakiin xogaa waxaa fiican waxa iyaga ku soo jeedinaya suggestion code inaad qaadato fiican ana waxaan dhihi doonaa marka chat for cash yet please intaan ku biisanaya waxaan tagi doonaa live chat jobs kii aan tagi doonaa meeshaan ku dhihi doonaa best okay control A leh xogaa farta area la noo ahaato bold ka dhig farta size-keeda 14 aan ka dhigay aniga okay inta kusoo laabo okay inta kusoo laabo where okay qoraalka noo soo qaad marka intaan soo koobiyey control C inta kusoo laabo intaan best ku dhig marka control V ku dhig
ama control z qofkan control v gelin computerka right click leh kadibna waxaa ku tiraahdaa paste okay waa sameynay waxaan u baahanahay sidoo kale laba sawir oo qaybtan ah labadan xabba haddana soo qaatay because intay kugu jiraan fiir click la siinay asoo kuu soo galay inta balaas ku dhufo upload marka upload tiraahdo waxaan sameyn doonaa inaan soo gelino sawirkan hadda qofkaan soo gelin doonaa sidoo kale intan waxaan soo gelin doonaa click si upload waxaan soo gelin doonaa sawirkan asagana soo gelin doonaa oo gabadhan laakiin qoraalada marka mid kasta title iyo content aan sameyn doonaa inta laga sameynaa waxa dhan emails ka isticmaal adiga emailskan hadda email 1 waa isticmaalnay click aan siin doonaa waa xiri doonaa email 2 ma email 2 waxa ku qoran building live chat career for could be your chance control c soo dheh macnaha waxaa la rabaa waxa iska qorqormaa waxaa la rabaa qofka yacni soo booqda wax uu fahmi kara oo markii uu arka yacni productigan isku nooc ay yihiin aan rabaa isku type ah soo koobiyey maadaama sababta aan u isticmaala emailada saas waayo inta control v ku dheh control a waxaa ka dhigtaa bold ciwaan ka dhig theory soo qaado oo subax intaan soo koobiyeysa click to apply bla 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 waxaan qori kartaa dhima lahan oo soco intaan noo soo koobiyey okay ina fahmaysaa rajayna wax symbols ka midda kale ku soo laabo email 2 waan isticmaalay email 3 isticmaal emailskan maxaa muhiim ah contact inaad google tagto wax adiga ku gaar ah waa qoran kartaa laakiin aniga waxaan ku soo jeedinayaa yani inaad markasta isticmaasho emailskooda inaad isticmaasho productiga landing page-keeda inaad gasho kadibna emailska iyaga isticmaalayaan inaad isticmaasho because waxaa la rabaa waxay real inay noqdaan wax isla inay noqdaan because qofka haddii kale uu ku aaminayo adoo live chat job soo geliya haddii sawir football u soo geliso يعني waxay noqonaysaa qofka inuu ku aamini waayo kadibna meesha uu ka laabto yani click ah heli wayso email for umaw click c get paid chat and apply now control c soo dheh inta keen okay control v ku dheh waxaan sameyn doonaa boodiga yaan xogaa korin doonaa theory-ga hadana waa kana mid ah xogaa ilaa iyo waxaan soo qaadan doonaa adiga midda haddana la ekisiina xogaa inta isoo koobiyey hadday dheeraatana waa jari doonaa okay now is right waa isleegihiin waxaa ugu dambeysiin doonaa oo ugu dambeyso saddexan xabaan ugu dambeysiin doonaa waxaan soo gashin doonaa saddex sawir oo kala duwan ayaan soo gelin doonaa kow ninkaan ku soo celi sidoo kale upload waxaa soo gelisaa sawirka computerkan mid ugu dambeyso click c waxaa soo gelisaa wax loo yaqaano okay waxaa soo gelisaa sawirkan macquul mid noqo kan soo geli I think inuu diidi doono okay right waa ogolyahay great kadib waxaan ku laaban doonaa emailski 13aad ama 12 isticmaal now tan soo koobiyeyso theory-gana soo koobiyeyso kana soo koobiyeyso kadib waxaa kusoo laaban doontaa live chat jobski aniga computerkii waa ii keedinayaa laakiin adiga waxaa la rabaa hal noo soo koobiyeyso okay middan kale marka ciwaanka waxaan sameyn doonaa hal xab haddii ay fahamto waxaan dhan ada sameyn karaa okay haddana ku laabo email 13 aan isticmaalaa waxaan ku jiraan 13 mid kasta waxbaa ku jira oo buuxa you have customer waiting for Facebook camal iska dhe kadib intaan soo koobiyeyso intaan koobiyeyso ku laabo meeshii ciwaanka waa kan control a dheh xogaa bold ka dhig b taabo qara weyn ka dhig sidoo kale how ku dhufo marka xogaa intaan waa tiri doonaa xogaa waxaan rabaa in isku noqdaan xogaa isku ekaadaan ku laabo affiliate-ka page-ka email 14 fur email 14 aan furi doonaa hi want to chat kadib meeshaan soo qabo okay control c dheh meeshaan ugu soo celi halkaa imaw inta click c I want to chat
أنا waxyaalo kala duwan oo qofka soo jiidanaya rabaa inaan sameyso fahmaysaa okay intaas ka tir okay now waa saxanaa marka xogaa marka waxaan sameynay landing page yara quruxsan aan sameynay waxaan sameyn doonaa marka batanadii u baahanahay hadda productiga kuma jirto haddii qofku landing page kan uu soo booqdo waxba kama faa'iidayo macnaha laakiin waxaan rabaa inaan button soo geliyo markii click uu siiyo alaabteeda loo geyn doono qofka dhow alaabta loo keeni doono macnaha loo geyn doono alaabti ama landing page ama affiliate linkiga nagula aqoonsan lahaa waxaan sameyn doonaa qaybtan aan tagi doonaa ay ku qoran tahay button markaysa click si buttonka waxaan ku qori doonaa live chat jobs from home qoraal fara badan qor meesha waxaan ku biin doonaa linkiga xagee lagu koobiyeyna waxaan tagi doonaa productiga promodan ku dhufan doonaa meeshaan waxaan dhihi doonaa tijaabo hoos soco meeshaan waxaan dhihi doonaa blog kadib copy linkaan qaadan doonaa linkan waa linkiga lagu aqoonsan doono qof kasta oo linkan soo raaca oo alaabtan iibsado ayaa waxaan ka heli doonaa lacag $3 ah oo bishi markii uu gataba ah iyo rebilling oo $29 ah waa lacag $30 rebill ah okay inta click si waxaan dhihi doonaa control v linki waa copy kadib waxaa leedahay insert markaysa waa weyneynaa marka geesan geenaya halkan dhig xogaa ma wanaagsana inta dhig control c control v midka taaba control c dheh control v haddana dheh ama copy dheh saad u fahmayso inta soo qaad qofka markuu soo akhristo cashirkan halkan hala keeno soo qaad inta dhig control cv control z okay intaan iga badan marka xogaa mid kasta waa gelin kartaa laakiin intaan aniga hadda ku daysanaya waxaan leeyahay publish okay web addresska magac isaga qor marka magaca waxaan ku qoraynaa live chat jobs kadib request to publish for search engine-ka waxaalaas in laga raadiyo waa la qaatay from home aan raacana hadda waa u galaa markaysa kadib waxaa leedahay publish macnaha magac hore loo qaatay ma lagaa yeelayo okay hoos imaa qaybtan click si haddaan idhaahda view publisher site wixii aan sameynay bal aan aragna great aad u quruxsan waxaan sameynay xaqiiqatan landing page aad iyo aad u quruxsan oo haddii qofkii uu ka helo ama productigeena uu click siiyo uu si toos ah ugu tegi doono laakiin meeshaan qalad inaan sameynay waxaa ah live chat jobs looma baahno waxaa la rabaa meesha in laga dhigo order now okay intaasaan qalad ku sameynay waxaan ku laaban doonaa link kanaan click siin doonaa waxaan dhihi doonaa delete sidoo kale midkan uu maawo mid meelaha soo dhigaa jiray aw markaasayna waa delete doonaa sababtoo ah magac kuma qor magaca u bixiya xogaa yar khaldan inta imaw hal mar buttonka click noo sii meesha waxaan ku qori doonaa order now hadda dalbo kadib landing page waxaan dhigi doonaa linkiga oo affiliate linkiga inta dhig insaad dhig saan u jiid okay publish noda marka got it kadib publish hadda inta imaw waxaa leedahay view site great markaysa xaqiiqatan landing page aad iyo aad u quruxsan waaye xaqiiqatan waa landing page aad iyo aad u quruxsan meeshaan haddaan rabno waxaan samayn karnaa qaybtan kale laba xabaan ka dhigi karnaa because haddaan hal xabaa samaysan sawirka ma bedelin xataa sawirka muhiim maahan kadib waxaan leeyahay publish site okay waxaa arkaysaa marka haddaan hadda view iraahdo on refresh iraahdo aad iyo aad maasha allah waad arkaysaa marka kan naga delete
kii hore miyaa hadaa raahda subax hadaa raahda view okay arkaysa marka productiga wax ku saabsan aan sameynay qofka waxaan u akhrisan doonaa kadib order now markii uu dhaho click order uu siiyo waxaa dhici doono in la geeyo landing page-kii waxaa la geyn doonaa si toos ah selling page-ka loo geyn doonaa selling page-ka ayaa loo geyn doonaa waa arkaysaa kadib alaabtu iibsan doonaa markii alaabtu iibsana waxaa dhici doonto inaa mataqaanaa productigii yacni lacagtii aad ka faa'iidi lahayd meesha aad ka hesho marka hadda waxaa noo dhiman maadaama hadda landing page-kii aan sameynay inaan landing page-ka linkiisa qaadno aan tagno ama Pinterest ku xayisiino ama aan ku xayisiino wax loo yaqaana Google Ads cashirka soo socda ayaan ku bixin doonaa assalaamu calaykum bismillahirrahmanirrahiim heerkaan ku soo doonaa maadaama hadda aan soo sameynay yani landing page-kii oo live jobs aan ku sameyn doonaa inaan sameyno keyword search toos markaa rabto productiga inaad xayisiiso ama rabto inaad campaign-ka aan sameyno oo Google-ka aan ku sameyno waxaa inaad sameysaa kow keywords waa inaad iska diyaarisa tusaale keywords waa inaad iska diyaariyaa haddaan halkaan tagno laba nooc la isticmaalaa inta badan SEMrush la isticmaalaa oo waa pro lacag laga rabaa list in oo $14 iyo bar camal bishii inaad iska bixiso marka waxaa markasta iska free ah ads.google.com imaaw akoonka sameyso meesha waa meesha aan campaign-keena ku sameyn doono ads.google.com si akoon looga samaystaa sign up leedahay kadib waxaa ku buuxinay yani akoon oo Premier Bank waxyaalahaas camal leedahay khasab oo kadib laftaadii iyo macluumaadkeeda ku buuxinaysaa sidana ku soo bixin doonto marka wax iska fudud waayo marka meesha waa meesha campaign-ka aan ka sameyn doono laakiin maanta waxaan sameyn doonaa keyword search tool inaan raadino horta kow yani productigan aan xayisiinayno keyword search tool-keeda inaan raadino waxaan sameyn doonaa marka inaan raadino tools inaan ku dhufato dadka qaar toolska meeshaan kore u soo qaban doontaa laakiin hadda aniga meeshaan ay soo qabanaysaa tools ku dhufo meesha ku qoran tahay kadib waxaa ku dhufataa keyword balaan ku dhufo labadan xabaa ku soo bixi doonto labadan xabo waa discover new keyword iyo sidoo kale search volume focused so discover new keyword ku dhufo meesha marka waxaa gelin doontaa ereyga aad raadinayso tusaale live chat jobs hadda anaga waxaan raadinaynaa live chat jobs kadib waxaan leenahay get result live chat jobs okay midkan aan ku daraa waxaan leeyahay get job from home get job from home kadib get result leh waxaa arkaysaa 542 keywords inuu leeyahay marka meesha waxaa noogu muhiimsan waxaa waaye yani inaad kala ogaato laba shay oo keli ah midda koowaad waxaa loo yaqaana monthly searches midda labaadna waxaa loo yaqaana competition labadaas iska fiirinaya monthly searches maxaa laga wadaa yani productkan tusaale online job to earn money hadda meesha ay ku qoran tahay haddaa fiirisa monthly searchkiisa waa 100 ilaa 10 ilaa 100 qofaa macnaha bishii soo raadaysa ereygan competitionkiisana waa medium marka erey waxaa fiirsanaysaa searchkiisa waxoogaa macquul uu yahay laakiin competitionkiisa uu low yahay sababta waxaa waaye haddii competitionkiisa high aad doorato tusaale haddii aan meeshaan nimaadno ereyga camal fiir hadda ay ku qoran tahay work from home earn money online hadda meesha ay ku qoran tahay haddaa fiirisa competitionkiisa waa high sababta waxaa waaye yani dadka xayisiinayo aad u badan marka erey kasta oo soo qaadanayso tusaale ereyga hadda ma qaadan karo keywordka ma qaadan karo sababta waxaa waaye competitionkiisa aad ayuu high u yahay marka haddii competition ereyga high u yahay aad doorato yani wax ma ka faa'iidaysa macnaha sababta waxaa waaye inaad hadhow yani productkaada clicks ama conversion inay heli wayso marka waxaa sameysaa markasta low competition ereyada isticmaal intaas marka waa in oo ku saabsan keyword browserka oo ah inaad ads google-ka aad soo sameysto kadib toolska aad timaado
kadib keyword bannerka aad ku dhufato markaas kadib aad sameyso ereyga macnihiisa aad raadiso. Hadda mid kale aan kusii dari karnaa marka laakiin muhiimadda waa inaad kala fahantaa monthly search-kiisa iyo sidoo kale competition-kiisa ma high ba ma low ba ama medium ba. Haddii low-na waa qaadan kartaa xogaa medium-na waa qaadan kartaa laakiin low aa ugu sii fiican inaad isticmaasho. Marka ereyga koobiyeyso tusaale dadka qaar waxay sameeyaan inay click siiyaan ay meel ku seefaan marka waxaas dhan waxaa sameysa marka inaad koobiyeysato oo notepad-ka aad tagto marka notepad internetka aad wadato markasta soo koobiyeysato inaad best ku dhahdo meesha notepad-ka inaad soo kiciso. Okay hadda wuu soo kacay control V. sidaas waa sida loo sameysto keywords-ka. Marka keywords-ka ugu badan aan diyaarsan doonaa laakiin waan rajeynaa inaad fahamtay sida inaad keyword bannerka u timaado kadibna u sameysan lahayd oo competition-kiisa iskaga fiirin lahayd iyo sidoo kale monthly search-kiisa. Bismillahirrahmanirrahiim casharkan waxaan ku baran doonaa maadaama keywords-ka aan soo diyaarsanay inaan sameyno campaign-keena inaan sameyno. Campaign-ka waxaa loo sameeyaa qaybtan sare ku dhufan doontaa ku qoran tahay create kadibna waxaa ku dhufan doontaa campaign. Okay meeshaan waxaan ku dhufan doonaa marka create tiraahdo kadib new campaign tiraahdo meeshaan waxaa soo bixi doonta. Meeshaan marka waxaa ugu muhiimsan qaybta ugu horeysa waa sales, drive sales online, apply phone or store-da waxaas isticmaalo. Meeshaan waa leads-ka waxaa waaye conversion-ada waxaas dadka isticmaala laakiin anaga waxaa noo muhiimsan sales web traffic. Web traffic waxaa waaye get the right people to visit your website. waxaan rabnaa dadka saxda ah inay soo booqdaan website-ka inay soo booqdaan. Waxaan sameyn doonaa qaybtan ay ku qoran tahay website traffic ayaa ku dhufan doontaa click. Sales-ka inta badan waa la isticmaala laakiin waxaa muhiim ah inta badan inaad isticmaasho web traffic ayaa muhiimsan. Website traffic aan ku dhufan doonaa qaybta hoose waa u maadna marka waxaan leenahay web traffic aan ku dhufano. Okay waxaan rabaa website traffic ku dhufo kadib waxaa leedahay continue. Okay qaybta hoose waxaa ka dooran doontaa search because waxaan rabnaa haddii aan dooran performance iyo maximum iyo display xayeysiiskeen dhan waxay noqon doontaa yacni qofkii video ahaan loo tuso dadka laga soo display la sameeyo lasoo bandhigay. Marka anaga waxaan rabnaa qof kastoo soo raadiyay because keywords-ka aan soo dooranay tusaale ahaan live chat jobs, how to get job from home waxyaalihi aan soo dooranay qofka inuu soo raadiyay. qaybtan marka waxaan ku dhufan doonaa ku qoran tahay search-ka kadib meesha wuxuu ku leeyahay campaign-kaaga magac u baxsan. magaca u bixin doonaa waxaan leenahay live chat jobs. waa xiriirin doontaa yacni inaad xiriiriso ayaa laga rabaa. meesha maadaama website-keena aan gelin karnaa waana ka socon kartaa. marka haddana waxaan gelin doonaa website-ka yacni landing page-ka aan soo sameynay control C markaan kusoo laabo meesha waxaan gelin doontaa marka website-ka geli kadib waxaa leedahay continue. ereygan waa lagu haystaa sababta waxaa waaye hore u sameysnaa oo meeshaan website-ka waayaa meeshaan waa website-ka intana waa campaign waa live chat jobs. live chat jobs from home continue. Okay meesha markaad timaado marka meeshaan ugu muhiimsan iyadana waxaa waaye burden-ka ama budget-ka yacni maxaa rabtaa ama click aa rabtaa mise conversion. maadaama ayaan akoonkaada u cusub yahay meesha waxaa ka dhigtaa clicks ka dhig kadib waxaa leedahay set maximum clicks. macnaha waxaan rabnaa qof kastoo productkan click soo siiyo lacag meeqa oo gashaay
inta badan 0.05 fiican laakiin waxaan ka dhigi doonaa aniga 0.5 aan ka dhigi doonaa aniga qof kasta oo click soo siiyo productgan 0.5 ayaa goosto kadib waxaa next halkaa marka waa search network iyo sidoo kale display network marka meeshaan labadaba tigto waa laga qaadaa inta badan dadka qaar waxay sameeyaan inay search u daystaan oo meeshaan search oo click u ahaado xataa search waa laga qaadaa marka hadaan search ka iska dayn doonaa hoos u maaw qaybtan u maaw marka because haddii yacni aad doorato tusaale search network haddii aad doorato display network maxaa dhacay easy way to get additional conversion similar to the lowest cost that search with unread search budget macnaha dad aan aqrinin productkeeda xataa waa la tusin doonaa taasoo macnaha kugu sababi doonto in yacni lacaga badan kaaga baxaan marka waxaa sameysaa meeshaan display network ay ku qoran tahay inaad tigta ka qaado okay hoos u soco locationka marka hadda fiiri all countries ay saaran waxaa sameysaa locationka inaad ka doorato United States oo kaliya United States sidoo kale waxaa ka doorataa Canada wadamada yacni online wax loogu iibsado inaad ka doorato waxaa kaloo laga doortaa New Zealand markaa ku dhufato qaybta countryga ka dooreen adaan intaas wadan ayaan doortay okay meesha language-ka waa English okay language English isaga dhaaf halka uma marka qaybtan hadda maadaama ay iga xiran tahay off iska dhe haddii aysan ku shaqeyn intaa kadib waxaa dhihi doonaa next oo qaybtan haddii kuu furanta adiga waxaa sameysaa off iska dheh meesha off iska dhe hoos u soco kadib waxaa leedahay next qaybtan waxaan leeyahay skip halkan imaaw meeshan waxaa loo yaqaanaa waa meesha keywordska laga sameyn lahaa hadda aniga group 1 aa igu qoran adiga marka ugu horeyso group name aa ku qoran meeshaan click siin doontaa groupka magaca ka bedeli doontaa group 1 group 2 inta badan waxa la haysiinayo yani waxaa la sameeyaa group 1 iyo group 2 two groups aa loo kala saaraa marka two groups u kala saar ama group 1 la iska sameyso meeshaan waxaa gelin doontaa landing page xagee waa inta imaadeysaa landing page kaada waxaa dhihi doontaa intaa click siinee waxaa leedahay view publisher site view site kadib waxaa qaadan doontaa linkigan waxaa leedahay control C linkigaa soo qaado kadib meesha imaaw control A dhe ama control V ku dhe haddana maadaama uu yeelo waa ka soconaa meeshaan u imaaw advertiser service-ka muhiim ahaan halkana ugu muhiimsan enter keywordska waxaa sameyn doontaa yacni waa erbixintii aan soo dooran haddii meesha aan tagno haddaan tagno waxaan soo dooran easy to earn money from home ereyada meesha aan kusoo doorataa soo qaadanaysaa intaa gashanaysaa ama google-ka wuxuu ku siinayaa suggestion keywords hadda kuwaan wax hadda ani meesha aan keena maahan yacni google-kana sii waxaa loo yaqaanaa suggestion keywords google-ka ku siinaya uu kuleeyahay yacni product in xayeysiinayso ereyadan iyo ereyadan ayaa ku habboon intaas markaan kasoo tagno hoos imaaw final url-ka imaaw meeshaan waxaa laska gashtaa waxaa xayeysiinayso magac yacni xoogaa u yar eg live chat jobs aan gashtay hoos uma meeshaan qaybtan 3 meelood la buuxiyaa heading-ka heading 1 heading 2 iyo heading 3 intaan u buuxin doontaa heading koowaad hadda waxay ugu qoran live chat jobs midka labaad waxay ugu qoran d1 2 kan saddexaad waxbaa igu qoran kan afraad waxbaa igu qoran marka waxaa sameysaa adiga productiga xayeysiinaysa waxa u eg headerkan ku buux at least shuruudaha lagaaga baahan yahay waa 3 xabo bas inaad buuxiso waa ilaa 7 xabo kuwan kale muhiim ah hoos imaaw qaybtan description loo yaqaanaa description-ka waxaa ku qori doontaa faahfaahin yacni waxa xayeysiinayso inaad faahfaahiso laba faahfaahin lagaa baahan yahay description-ka ilaa 10 aan qori kartaa add description inaad tiraahdo oo aad u badiso laakiin waxa lagaaga baahan yahay ugu bad yacni shuruudaha waa 2 xabo oo keli ah intaa markaad sameyso waxaa dhihi doontaa next marka qaybtan loo keeni doonaa qaybtan waxaa loo yaqaanaa budgetka waxaa waaye yacni productigan meeqa lacag oo gashahay daily in lagu xayeysiiyo hadda aniga waxaa ii dooran
$10 custom waxaa laga yaabaa marka ugu horeysa inuu kuu saaran yahay waxaa sameysaa set custom budget ku dhufo kadib qaybtan ka dooro at least 10 dooro because clickska maadaama bilow uu yahay 10 iska dooro qaybtan marka waxaan leenahay next kadib campaign adiga meesha waxaa kusoo qori doonaa you are checking for error kusoo qori doonaa errorkaas kusoo qoraya macnaheedu waxaa waaye campaignkaada la jeegareynaya qaybtan baadinka campaign settingska keyword and reset generationka meesha ku qoran tahay keywords xayeysiiskaadii iyo budgetkaa la jeegareynaya qaybtan waxaa ku qoran review aa la gelinaa haddaysan error jirin waxaa lagu soo qori doonaa your campaign is ready to publish hadduu error jirana waxaa lagu soo qori doonaa in lagu geeyo meesha qalad uu ka jiri waxaa lagu saari doonaa calaamad gaduuda lagu saari doonaa marka calaamadaas gaduudka dul tagay qaladka jira xalinaysaa haddii uu qalad uusan jirin waxaa dhihi doontaa get or publish campaign hadda waxaa arkaysaa meesha campaignkeeni yani inaan publish ku sameynay your ad group and review hadda waxaana la geliyey review aa la geliyey midda ugu horeysa kow create campaign completed tigaa loo saaray mujeedaa midda labaad waxaa waaye policy review waxaa lagu fiirin doonaa sharciyada google uu leeyahay ayaa lagu fiirin doonaa ilaa waxay qaadataa in progress waqtiga ay qaadanaysana waxaa waaye 1 to 2 days hal ilaa 2 maalin ay qaadanaya macnaha midda saddexaad waxaa la fiirin doonaa impression la fiirin doonaa upcoming waa midaan tanna waa clicks impression waxaa laga wadaa dadka productka inay arkeen يعني click aan sameynin hadhow waxaa lagu soo qori doonaa tusaale ahaan 100 qof impression alaabtaada ku samaysan waxaa laga wadaa 100 qof dul martay clickskana waxaa waaye dadkii unique linkga ku dhuftay waxaa loo yaqaanaa clicks marka campaignka waa la jeegarin doonaa haddii uu nadiif noqdo waa la soo gelin doonaa hawada marka waa sidaan sida saxda ah oo loo xayeysiiyo yani clickbank productkiisa campaignka waxa iska fudud waayo inaad campaign tiraahdo kadib aad soo samaysto instructionka aad raacdo intaas unbaa campaignkan loo sameeyaa waan rajeynayaa inaad fahamtay intaa markii tig lagu saaro productgaadii yani googlekii kasoo muuqan doontaa markaasaa waxaa heli doontaa wixii yani rewards ama sidii wax u shaqaysto baa u heli doontaa marka waa sidaan sida loo sameeyo google campaign marka google adska sida wax loogu xayeysiiyo waa sidaan marka waan rajeynaya inaad fahamtay halkaas ayaan kusoo gabagabin doonaa kooraskii ahaa clickbank